عشان جوجا إذا تصايا مركاري وعفيرك عن تيدا كل جن وكناعه مجدين حتى دي لقف ببحث هكذا ماشي أصيب قرنتا سدح بخل يلح كان واحد لا باورت بالروس اللي وسوا أنا استاجل واي أنا وصلت فريدي كوي ما ضل وكجراع عيان محوصون نغطي كلية أرض كالصعة مركي إن شاء الله مركي صار صعدنا ويستاجي دونا تلفن كانوا ودمنا maanta maalin iga xanuun badan iga dhibaato badan iga cabsi badan noloshayda ima soo marin markaan muddo 8 maalmood ah meesha aan fadhiyay oo hay'adii wax jawaab ah aan ka waayay maalintaas waxa dhacday in askari ah in meesha lagu dhaawaco meesha ay sii adkaato xaaladda ay xumaato kadib aniga waxaan go'aansaday inaan dib isaga soo laabto halkii aan ka tagay ee miniski aan ku soo laabto bas ninkii Keenyan wacay waxaan dhaynay inaan dib u soo laabtaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed isla socon dhamaantood way wada galeen Ilaahay waa u fududeeyay anigana meeshii hay'adda way igu adkaatay waxaan rabaa inaan dib u laabto markaas wuxuu wadadan ku raadinaa dhalinyaro meesha joogtay oo Carab ah oo la hadlay dhalinyaradii ay imaaday waxay dhahay ma socon kartaa ma socon kariyaan dhahay 2 kiiloomitir la soconaa 2 kiiloomitir waxa la rabaa inaad adiga socotid kadibna birta shabaq laga hoos baxo noqdada gaariga in la tago aniga ma socon kariyaan dhahda ay qaadi kartay anaga kuma qaadi karno dad kale waa inaa raadsataa in la galo iyo in la soo baxo waxa fudud in la galo waxa adag in la soo baxo habeenkii dhalinyaro kala soo laabanayeen dhalinyaradii aan la hadlay waxay anaga energy ma hayno kuma qaadi karno bas markay tala meesha taagan tahay igu akiran tahay markaas waxaan arkay wiilal Soomaaliyeed oo dhahayaan haddii birtan lagu dhex dhigo oo hal mar gariig lagu saaro lagu dhex geliyo waxa laga yaabaa maadaama naafata inay ku qaataan kadibna boolana saas ku tagtid bas qorshiyan cabaar ka fikiray tashkiilan sameystay lacag Turkigan dhigtay oo aan ku galay meesha liigu furaayay kadib birtii la kala qaaday waa galay birta markaan galay askariga soo igu shubay dhulkan ku dhacay cabaara meesha ku raftay dhalinyaro badan fiidiyooyo iyo iga duubeen oo ii qeeliyeen dhahay warninkan naafa ah waaye yaa sun lagu shubin waxa xanuunsan yahay ambalaas loogu waco waxa soo dhannatin cid dhageystay malahan anigoo meesha ku rafanayo hal mar fiidiyoogeeda la daawo waad aragteen run ahaantii aniga cabaar waxaan ku fikiray inay qaadanayaan oo dhankaasi Poland ay geenayaan laakiin sidaan u mooday ma aysan noqonin aniga markaas aan galay waxaan ka galay noqdada 335 gaariga igu qaadeen waliba gaariga leeguma naxariisin wallahi aan ku dhaartay gacanta intoo iga qabta askariga oo ijiiday gaari shabaq la meesha yaalay oo inta mid kale lugta iga qabtay saasta ii qaadeen loor galay oo kale igu tuureen juuga meesha iga soo gaartay waan ku dhufsaday gaariga waxaas fiirnaa indhaha suna iga jirto ilinta iga socoto rafaadka maanta dhan waa qunfice waa wax bisbaas oo kale lagu shubo waay kadib waa qaadeen gaariga soo u socday waxay iga tuureen noqdada 306 baakor mawti jaakad mawti hal fanaanad bisaan wataa roob cirki iyo dhulka ka imaada qaboob aan qeeliyay aan dhahay icaawiya waa idin baryaa xataa noqdo ay joogan Soomaali igeeya dhigtaana waa iska jiran irida iga soo xirteen ano tala igu akiran tahay oo isdhahay maxaa ku bixaysaa baakoorna ma haysatid xaaladadana way xun tahay meeshana dhex fadhisaa markaas waxaan arkay gaari Belarus ah oo wax yar markii meesha laga fogaado gaariga meesha maray buuxa gaariga markaa maqlay waa farxay وأقيري هلبي إعاوية أنكو قيري عد بنا آدم أو مخلص منا قارينا وجود بي والله وش أنا مش كهلة وش أنا أوجدين أنا مش كهلة وش ينكو سوق قرقور تنكو سوق كتبي جدك يا إمادي جدك بركة إمادي وأنفد يستي إن به سيدي أهاين dharkayga sidoo ahaa sunta lagu shubay kalarkayga si ka dhigtay oo dharka hal mar ila daawo inta la qabtay asixun la soo tumay dhaana sun liiga soo buufiyay
bannaanka ay igu soo tuureen. isku daygii ugu dambeeyey waxaa ku fashilmay, marka way ii qorneen inaan gudaha galo. alxamdulilah waa dadaalay, maalmo badan ayaan soo maqnaa. hadda birta Belarus horteedaan fadhiyaa, intayna iga jirtaa Poland. keentan wax yar markii la dhaafo waxaa suran calankoodii aa suran. inta hadda aan joogana baabuurka oo Belarus ayaan ku sugayaa. dhulkaan fadhiya baakor xataa ma haysto. dharkaygana waa rafaade, raashiin ma lahan. indheyga soo noqdeen mujeedin. alxamdulilah aabba dadaala ayaan ahay. waxaan isdhahay ilmahaaga noloshaan nolol dhaanta siiye, laakiin alxamdulilah waan isku dayi doonaa ilaa aan ka guuleysto. waan ogahay maalin inaan dhimanayo. intaan dhimanin laakiin waan dadaalayaa. meeshaan joogaa idin tusaya. marka hore waa fiiri gacanteeda ku dhegan, waa kaneeco mujeedin. xataa hadii la afuufba baxayso waa kaasaa. meeshaasay ku qorantahay 306. jidkan waa cidlo, baabuurta Belarus lagu sugaa. inaan istaaga le waaye. anoo san u fadhiya ku imaadan waa ku garaacayaan. maxaa u soo noqotay kuliyan orod gal soco. marka insha Allah markay soo socdaan uu istaagi doonaa. telefonkana waa daminaa. dabcan inaad aragta ayaan filayaa. qofkii aqliga u saaxiibka ah waa uu fahmi karaa xaaladda waqti xadirkaas aniga aan ku suganahay. dadka qaar waxay leeyihiin sidee macquul ku tahay adigoo dhibaatadaas ku jiro inaad fiidiyo iska dubto. aniga mobilkeygaan wataa, markaan dadka indhahooda iska fiiriyo aan isku duubay. waayahay jidkiyaan fadhiistay, jidkaas aa ujeediin aan fadhiistay. markaan jidka fadhiyo ugu yaraan 35 daqiiqo waxaa soo maray gaari oo Belarus ay leeyihiin oo ciidamo military ay saaran yihiin. haddii aad fadhiso waa lagu imaanaa, lagu diro, waan lagu garaacaa. sabab aa usoo baxdaa lagu leeyahay ku laabo meeshaada. marka anigoo xogta haysto, marka gaariga soo dhawaaqay waa istaagay. markay arkay inaan naafa ahay, gaariga ii saajeen, laba garba iga qabteen, gaariga ii saareen. say ii wadeen, waxay ii geeyeen meel wada ah oo laakiin xiradooda ah. gaariga waa sii baxay. laba askari ay imaadeen, garbaha iga qabteen, way isoo wadeen. markay i qaadi waayeen, gaargacan meeshii ay soo qabteen. wallahi na been idin sheegeen, gaargacankaas la igu qaaday. waxay i geeyeen meel oo sida god oo kala ah ay ku jiraan 200 oo qofood iyo hal gabar oo Soomaali ah. askariga markuu arkaano gaariga lagu wada meesha dhigoo la dhahay ninkan xaaladiisa noocan waayo, madaxu gacan saartay. see ku imaaday inta? yaa ku keenay? geesa lii fadhiisiyey, sun ay ugu jirto arkay. bas dhalinyaradii kala la qiimeeyey, Indi, Afghanistan, Falastiin, Urdu, Bangladesh. adigu way dad badan isugu jiraan. group loo kala bixiyey. mobiladana laga qaaday. mobilada waa la baaraa, waa la fiirinaa. kolay waxba kuma arkin oo fiidiyoda ana iska duuba aan ka ahayn. dhalinyarada kala mobilka laga qaaday. bawra meesha la keenay. group la isku qaaday. group walba waa la qaadaa, dib baa loo celinaa. wax la dhahayo intaan ku soo laabanaa ma jirto. waxa meesha ugu darnaa oday ay lugta ka soo jibiyeen ciidamada Poland iyo wiil lugta ka dhaawacan asagana oo ka murugacatay oo aad ay u barartay lugta, iyo mid feeraha ay ka soo garaaceen oo feeraha ka xanuunsan, iyo gabadha Soomaalida ah iyo aniga ee meel fadhiisiyeen gooni ah. waxay leeyihiin adinka miniski martiin ku laabateen. lacag taksiga gaariga ma haysteen? waa haystaa. okay, anaga idin wadeeno meeshiina fadhiya. waxaan meesha galay 10 saac oo galabnimo. habeenkii 4 saac ana laga soo waday. 4 saac gaar nagu soo qaadeen meel oo taksi laga dalba karayna keeneen. taksiga meesha ka dalbanay, taksiga soo raacnay. roob waa daa, dhaxanta saan u jirayna ilaaha og. haddana gaari kale noola keenay. gaariga meel lagu dajiyay, gaarigaas kale la soo saaray. gaariga sida uu noo soo waday 10 saac habeenimo oo wuxuu keenay miniski. dadka waxay dhahayeen nabarka aawe meeshan jooga gaartay oo jeedin Soomahan way sii baaba'aysaa. jugdi gaartay way sii baaba'aysaa. marka dadka waxaan u maleeyo in sheeko iyo waxaan aan la soo kulminayo rafaad aan arkin ay u maleeyaan. kulli qofkii wax garad ah wuu fahmi karaa taariikhda iga qabsatay Belarus ilaa Poland. intaas ayay ahayd oo aan idin la wadaagay. qofkii lixadkiisa uu dhameystiran yahay oo Ilaahay lixadkiisa siiyay, alxamdulillah dhaho. cid u baahan yahay malahan.
وفانتين سوماهن وايد على يردا أسلس سعني ودن وحب كل جود ووضع قلين ماشي إن الأرض أباها انتهي أنا جرى تبرت اسمها هاي لكن هو حول بيئة حاطبه الحمد لله إن عنده ويفي عن تهي ويا أنا وعافات قبل بدن صلاتي إلى هم هذا إسكال وحب يقول داعي أنا أسحبتي ذاتهين إن وحول بيدين لو ذاقو أديان وجعل هاي يوحي أن لا سوكل مي أنا هذا الشكل إيجا تهي إن أفكر إذا كغشيغو أنا إسكبح لها أنت صو مقال أما بصوتو باللهم بقى لكن صمرد وأوغا وحي كو قنعان عدين مر والبا هذا إذن سلامي دونا بإذن الله الكريم يوتيوب كيغا كو سو لابتي شقديدا waa wadan doonaa falogdeeda waa iska duuban doonaa halkaan ayaan iska joogi doonaa inta ilaahay ilid khayr qabo oo iga furaayo kulli dib dambe uma laaban dooni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh